diyaarad ciidan oo ay leedahay dowladda qatar isla markaana siday qalabka looga hortago faafitaanka cudurka covid-19 ayaa galabtaas soo caga dhigatay garoonka caalamiga ee aadan cadde ee magaalada tan muqdisho iyadoo deeqdaasina ay la wareegtay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur munaasabadii deeqdaasi lagula soo wareegayay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ka socotay safaaradda qatar ay ku leedahay magaalada tan muqdisho Fawziya Abikar Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka oo la wareegtay deeqdaasi ayaa dowladda qatar uga mahad celisay kaalmadan oo ay tilmaantay in ay ku soo aaday waqtigii loo baahnaa waxaan u joognaa maanta airportka aadan cadde international airport macaawinad inaan qaabilno macaawinad ka timid dowladda qatar ee walaalaha aan nahay macaawinadaasoo loogu talagalay waxyaalaha loogu hortago cudurka covid ee kala duwan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaheen qatar macaawinadayna la soo gaareen waxaan sii filaynaa insha Allah tacaala meeshooda inay ka sii wado oo maaragtay ay shacabka Soomaaliyeed ugu gurmadaan si maaragtay waafi ah waa dad walaalo ah saaxiibo dhow ah marka waxaan ugu mahad celinaynaa mar walba macaawinadayna la garab taagan yihiin siday noogu soo gurmadaan deeqdan ka timid dowladda qatar ayaa qayb ka qaadanaysa dadaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu jirto sidii loogu hortagi lahaa faafitaanka cudurka covid